Dhawaan waxaa la filayaa in cilmiga barashada aadamuhu uu soo saaro dawooyin dadka da'da ah ka caawinaya inay ka adkaadaan calaamadaha gabowga sida daalka, burburka iyo jileeca jirka ku yimaada. Saynisyahanada ayaa muddo ay tijaabooyin badan sameynayeen kadib waxay sheegayeen inay caafimaadka adduunka ku soo kordhiyeen kacaan cusub kadib markii ay soo saaraan dawadan jirka ka dilaysa unugyada gaboobay. Arrintaas oo haddii ay suurto gasho sababi doonta in adduunku ka nasto kharashaadka xad dhaafka ah ee lagu bixiyo daryeelka caafimaadka iyo nolosha dadka waaweyn. Muhiimadda ugu weyn ee ay dawooyinkani sameynayaan waa in xaaladda caafimaad ee gabowga ku lamaan dib loo riixo iyadoo aan mid loola tacaalayn. Daraasadan ayaa muddadii tijaabadeeda la waday waxaa dawada gabowga lagu tijaabiyey dad qaba kelyo xanuun iyo macaan. Muddo 3 maalmood gudahoodna waxaa lagu arkay isbeddel ay ka mid tahay in dawadu 30% yareysay unugyada gaboobay isla markaana ay dhintay heerkulkii dhiigga. Jawaabtii ay saynisyahanadu ka arkeen dadka ay dawada ku tijaabiyeen ayaa dhiirigelisay inay soo saaraan dawadan oo kiniin ah. Unugyada gaboobay ee ay dawadani dilaysaa waxay jirka ku sii daayaan maadooyin kiimikaad oo markay isku ururaan ku ah khatar caafimaad jirka bini'aadamka, waxaanay khatartooda ugu badan tahay qofku markuu gaadho da'da 70 jirka. Maadooyinkaasi waxay sababaan xaalado badan ay ka mid yihiin wadne xanuunka, lafo burburka, macaanka iyo xitaa asaasaqa. Sidoo kale waxay unugyadana sababaan coodka maqaarku sameeyo iyo shabakadda aragga oo ay dhaawacaan. Sida uu ku warramayo wargeyska Times ee ka soo baxa dalka boqortooyada Ingiriiska, sanadihii ugu dambeeyay waxay saynisyahanada adduunku soo saareen noocyo dawo oo unugyada gaboobay ee jirka ku qasbaya inay isdilaan ama ay isburburiyaan. Waxaa kaloo ay dawooyinkaasi wax weyn ka qabteen xal u helidda cilladaha shaqo iyo xaaladaha caafimaad darro ee gabowga keeno sida wadne xanuunka, sanbabada, dabacsanaanta jirka iyo unugyada xanuunka maskaxda dila ee Alzheimer.